السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبرين سلامي يا صاحب يال مقعيقو حسن عبد الله حسين waxaad ku soo dhawaataan cashar aad iyo aad u xiiso badan oo ku saabsan the fox and the hyena dawacadii iyo waraabihii. runaantii sheeko aad iyo aad u xiiso badan ayaan saaxiib yeel idiin soo diyaariyey. sheeko runaantii aad cashirka baran doontaan. haddaba waan kaa codsanayaa walaal inaad kanaalka aad subscribe garayso muuqaalkana aad la garayso. inta oo kaliya aan kaa codsanaya cashirkan xiisaha badan baan kuu soo diyaariyey. insha Allah inta inaad iga iloobi doonto ma rajaynayo. waayahay once upon a time waa waayaha ka mid ah ayaa la isku dhahaa intaas. a hyena waraabe and a fox iyo dawaco ayaa were neighbors waxay ahaayeen daris. the hyena waraabuhu and the fox iyo dawacadu owned waxa ay lahaayeen many different animals xayawaano fara badan haddana kala duwan. but laakiin the fox dawacadu had waxay lahayd less than wax ka yar the hyena waraabaha. yani xoolaha waraabuhu u haysto iyadu kuwa ka yar bay haysatay dawacadu oo waraabaha ka xoolo badnaa. the fox dawacadii made waxa ay ka dhigtay the hyena waraabihii love her mid iyada jecel. يعني jacayl bay ku abuurtay si xoolahaas ay uga wareegto. waayahay and after a while xoogaa kadibna the hyena waraabihii asked waxa uu weydiiyey the fox dawacadii to marry him inuu isaga guursato. in ay guursato ayuu weydiistay. she quickly said yes. si dhaqso ay waxay u dhahday yes ha ayay dhahday. ma ay guursanaysaa buu ku yidhi haa bay kula heday waaba midii ay rabtay. and they got married wayna is arooseen. one day maalin the fox dawacadii ayaa left waxa ay ka tagtay home guriga while halka the hyena waraabihiina was sleeping uu hurdaayo. waraabihii isagoo hurdaayo ayay maalin guriga ka tagtay. she went waxay aaday to the lion libaax who needed kaasoo u baahnaa someone qof to take care u xanaaneeyo of his animals xayawaanadiisa for the day maalintaas. because maxaa yeelay he was tired wuu daalanaa. libaax daalan oo ay ogeed bay u tagtay si ay xoolihiisa ugu xanaanayso isaguna way u baahnaay qof xoolahan u xanaaneeyo. waayahay the fox dawacadii maxay samaysay haddaba. the fox dawacadii ayaa asked waxay weydiisay the lion libaaxii are you tired today maanta ma daalan tahay. are you tired ma daalan tahay today maanta. the lion said libaaxii baa wuxuu yidhi yes ha I am tired waan daalanahay. the fox and dawacadii ayaa spoke waxa ay u hadashay softly si jilicsan and sweetly haddana macaan to the lion libaaxii si jilcan cod macaan badan oo jilcan ayay waxay ku tiri go get some sleep orod bax xoogaa yar soo hurud bay ku tiri. I will keep aniga ku ilaalinaya your animals xayawaanadaada for the day maalintaani. the lion libaaxii ayaa said waxa uu yidhi will you watch them really well ma u ilaalinaysaa xayawaanada si run ahaantii si wanaagsan. will you watch daawasho ma aan hadda yani xayawaanka markii la ilaalinayo waad fiirinaysaa sooma waad daawanaysaa yani ilaalin baa markuu dhiganta markaan. will you watch ma u ilaalinaysaa them xayawaanaday u laabanaysaa really run ahaantii well si wanaagsan ma igu ilaalinaysaa buu ku yidhi. maxay ku tiri oh yes allah I will waan u ilaalinayaa. said the fox sidaa waxaa dhahday dawacadii. the fox dawacadii ate waxa ay cuntay the lion's fattest sheep idihii ugu buurnaa libaaxa xoolihiisa. fattest waa ugu buuran sheepna waa idihii ayay maalinka ku kala baxday markuu baxay. then kadibna she took waxa ay qaaday a little meat hilib yar ayay qaaday. meat waa hilib and returned waxayna u laabatay home gurigii where halkaasoo the hyena waraabihii was still weli sleeping uu ku hurdaayay. halka waraabihii uu jiifo gurigii ayay u laabatay cad yaroo hilibana gacanta ku sidataa. when markii she went ay aadaysay into the house gurigeeda she spread waxay ku faafisay some blood xoogaa dhiig ah oo from ka yimid the meat hilibkii xoogaa yar oo hilibka dhiigga ka yimid ah ay waxay ku faafisay
on the sleeping hyena's mouth waraabihii hurdayay afkiisi ay dhiig u marmarisay yacni then kadibna she ran back dib ay uga soo carartay to the lioness animals xayawaanadii libaaxii ayay dib ugu soo carartay filim aan inaba caadayn baa halkan ka socda the lion libaaxii ayaa came waxa uu imaaday a little while after xoogaa yar kadib ayaa la yidhahdaa a little while after xoogaa yar kadib for example qof baa wuxuu ku yidhi gurma soo laabanaysa hadduu qof kale waxaa leedahay I will come back a little while after ayaa ku leedahay xoogaa yar kadib baan soo laabanayaa while halka the fox dawacadiina was watching ay ilaalinayso the animals xayawaanadii markuu yimaad libaaxi muxuu sameeyey isla markiiba he counted waxa uu tirsaday wuu ogyahay dawaca inay khiyaanoley tahay he counted waxa uu tirsaday the animals xayawaanadii and he saw waxa uuna arkay that in the fattest sheep idihii ugu buurnaa was gone uu baxay the lion libaaxi ayaa asked wuxuu weydiiyey the fox dawacadii what happened maxaa ku dhacay to the sheep idaha maxaa ku dhacay and she said waxayna ku tiri the hyena waraabe ayaa ate it cunay waraabe ayaa cunay idahaas I tried waxaan isku dayay to protect it inaan ka difaaco but laakiin I couldn't ma awoodin cajiib ninkan dhiiqaa lugaha loo geliyay miskiinkii waraabaha isna wuu isku hurdayaa the lion libaaxi ran wuu cararay very fast si aad u dhaqso ah ayuu cararay to find si uu helo the hyena waraabihii he saw waxa uu arkay the blood dhiig ayuu wuxuu ku arkay on the hyena's mouth waraabihii afkiisii and believed waa uuna aaminay waxa the fox dawacadii said ay dhahday wixii dawacadii ay ku dhahdayna waa uu aaminay maxaa yeelay ninkan idihiisa tii ugu buurneed oo uu mar waliba يعني حتى تصالح قف والبو هذا المقال كان داوني داركaaga waxaa jiro shay aadan ka kaftamino dhankiisa laga soo maro xoolahaaga sidoo kale marka xabadii uu xoolaha ka fiirsanaya ka maqan waraabahana afkiisa dhiiga ku yaala xusmi the lion libaaxi ayaa killed waxa uu dilay the hyena waraabihi ayuu dilay the fox dawacadii then kadibna had waxa ay qaadatay had all animals xayawaanadii oo dhan iyada iska leh and she got rid of waxa ayna ka takhalustay ergan eeg halkan got rid of waxa la isku yiraahdaa ka takhalusid she got rid of waxa ay ka takhalustay her husband xasigeedii bay ka takhalustay ninkeedii waxaan uga takhalustay xoolahaas yarka dartood hadaba cashirka aan ka baranay muxuu yahay never trust a greedy person never trust marnaba ha aaminin a greedy person shakhsi hunguri weyn greedy waxa la yiraahdaa qof hunguri weyn oo wixii uu cuni lahaay ama wax dheef un maahane wax kasta xataa uu sameyn kara hunguri weyn ayaa la yiraahdaa marka inta ayaan ku soo afmeeraya muuqaalka xigta inta la gaaro waxaan iska tagay saaxiibayaal sidaas iyo amaana Allah